weli daawadayaal wararka dalka Ethiopia iyo deegaanka Soomaalida ayaanu ku gudo jirnay kooxda Daacish ee ku sugan Soomaaliya ayaa soo saartay muuqaal 25 daqiiqo soconaya oo ku baxay afka Amxaariga kaas oo ay ku doonayaan in ay ku qortaan dad ka soo jeeda gudaha dalka Ethiopia. saddexdii muuqaal ee u dambeeyay ay sii daysay kooxda ISIS waxa ay dhammaantood ku qornaayeen luuqada aan ahayn kuwa Carabiga iyagoo sidoo kale dalbanayay dad ka soo jeeda dalka Ethiopia iyo gobolka oo ku soo biira jihaadkooda. muuqaalka 24 Juun ay sameysay Daacishta galbeedka Afrika ee Iswaab laba fiideo ka soo baxay Ciraaq oo ku baxay afka Kurdishka iyo muuqaalkan cusub ee ku qoran afka Amxaariga waxa ay qayb ka yihiin bilowga taxanayaal ay doonayaan in ay ku qortaan dad aan Carab ahayn kooxda argagixisada ah ee Daacish oo ka faa'iideysanaya xaaladaha cakiran ee dalka Ethiopia ayaa waxay u egtahay in ay doonayaan in dadka Ethiopiaanka ah ee ka soo baxay dalkaas Ethiopia ee ku soo jeeda Soomaaliya ay ku qortaan ama ay u qortaan askar si ay ugu qayb qaataan howlgaladooda Soomaaliya iyo gobolka. tirada dagaalamayaasha Daacish ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu qiyaasay ilaa 200 kuwaas oo badi ku sugan gabaadna ka dhigta dhulka buuraleyda ah ee gobolka bari ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. muddooyinkii u dambeeyay Daacish waxa ay askaraysay dad ka soo jeeda qowmiyadda Oromada kuwaas oo ku sugnaa magaalada Boosaaso iyo meelo kale oo ka mid ah gudaha Soomaaliya. maamulka Puntland ayaa hore u shaaciyay in ay jiraan dad badan oo ka soo jeeda Ethiopia gaar ahaan qowmiyadda Oromada oo ku biiray ururka Daacish iyo sidoo kale kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. waxayna qaar ka mid ah oo ay ku soo qabteen howlgaladani ay sheegeen in ay ka soo qabteen gobolka bari ee maamulka Puntland.